sugane indhaha sidii qaansada u dhigan labeenta ku sima wejiga timaha sugulkee madow sidee soo aragta tegay quruxda sugane indhaha sidii qaansada u dhigan labeenta ku sima wejiga timaha sugulkee madow sidee soo aragta tegay sugane indhaha sidii qaansada u dhigan labeenta ku sima wejiga timaha sugulkee madow sidee soo aragta tegay ayaa naftu saaqayo siduu xaalkaygu yahay hadeer ma sifayn kare waxaa jira zaa'id badan saaqayo siduu xaalkaygu yahay hadeer ma sifayn kare waxaa jira zaa'id badan markaad suurootidu indhaha sii kala dhaxdaa qalbiga soo jiidato dareenka saxdaa kacee sidaada u qurux badno markaad suurootidu kala sugane indhaha sidii qaansada u dhigan labeenta ku sima wejiga timaha sugulkee madow sidee soo aragta tegay quruxda sugane indhaha sidii qaansada u dhigan labeenta ku sima wejiga timaha sugulkee madow sidee soo aragta tegay naftu saaqayo siduu xaalkaygu yahay hadeer ma sifayn kare waxaa jira zaa'id badan ayaa naftu saaqayo siduu xaalkaygu yahay hadeer ma sifayn kare waxaa jira zaa'id badan markaad suurootidu indhaha sii kala dhaxdaa qalbiga soo jiidato dareenka saxdaa kacee sidaada u qurux badno markaad suurootidu indhaha sii kala dhaxdaa qalbiga soo jiidato dareenka saxdaa kacee sidaada u qurux badno markaad suurootidu indhaha sii kala dhaxdaa qalbiga soo jiidato dareenka saxdaa kacee sidaada u qurux badno markaad suurootidu indhaha sii kala dhaxdaa qalbiga soo jiidato dareenka saxdaa kacee sidaada u qurux badno
subax iyo habeen anigu kula socdayo waxay diraysaa malayn hablaha Soomaaliyeed kuwooda u suurad wacan adaan subax iyo habeen anigu kula socdayo waxay diraysaa malayn adaa suganay hadeere iskiyo niyadaba sitee macaan ila saayiro xidhiidhaba ila samee horta asxaabta waxaan salaamayaa walaalahay qosol wanaag iyo cabdifataax waxaanu ku soo dhawaansan dukaanka cusub ee laga furay xaafadda Isli qaasatan Koonasanta wax badan baa ka heli doontaan fahanteen dhalinyaro shaqaysanaysa garabka hal istaaga hadee waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin qof walba xalfad qurux badan meesha loogu qabtay marka waxaan ku leeyahay thank you marna saaxiibadana hanay wax walba isku nahananiyada marna hawarida u hay waxa ku faraxsanahay dukaankeeda cusub oo inaan maanta taaganahay xalfadeedana ka qayb qaatay eedii walaalkayga cabdifataax yare love you guys waan wada jeclahay waxaan leeyahay dukaankii baraaro Allah ka dhigo way dadka waxay isku duceeyaan markay dhalayeen iyo markay aroosayeen bas la isku duceeyay laakiin dukaamakan waa loo duceeyaan leeyahay walaashan shumeen garabkeena taagantaa oo madanaa shumaca ka nuur badan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh miskiintii rashimay beeb kala gooso meeshan waxaan ugu faraxsanahay walaashay aan u hambalyeynaayo qosolahe qurux meena maasha qosol wanaag maasha Allah hambalya ku leeyahay dukaanka kii lagu buraaray oo mid ka weyn iyo mid kale ka sii dhow inaan ka hesho insha Allah ku rajeenayo mideeda kalena suuq wuxuu u baahan yahay dadaal insha Allah tii samartay Allah ka dhiga baa macaan insha Allah binakri insha Allah ma sha Allah inta waxa uga hambalyeynaa walaashay qosol wanaag dukaanka ay furatay oo waxyaalo badan laga helayo walaashay hambalyeeyaan kulay hore u soo labadan walaalahay labadeeda garab ma sha Allah hambalyo dukaanka Allah idin barakeeyo waxaan rabaa inaan yara la dardaaramo ganacsiga sidiisoo dulqaad u rabaa u dhabar adeeg u rabaa inaa wax walba oo ku mar waa suuq la'aan ku dhaxays mar way ku kala kacaysa marka maalinka suuq la'aanta dhammaan suuq la'aana suuqa way xirtay waa iska xiraa ma ahan waa inaa u dadaashid oo u dhabar adeegtid oo wax walba aad ku qaadataan walaalahayga qaaliga ah ee ka soo galay xafladan ka soo qayb galay macnaha xafladan quruxda badan waxaan kala aad iyo aad ugu mahad celinaa walaalkeen qaali ah diiwaan aan only cameraman Ali aad iyo aad u mahadsan tahay walaalahayga qaaliga ah idinkana dhamaantiin sida aad uga soo qayb gasheen xafladan quruxda badan aad iyo aad ugu mahad celinaya haddii aad nooga barateen inaan idinku qoslino ama waqti mataqaana aan idin la sheekeyno macnaha haddana waxaan la wadaagaynaa businesskeena dukaankeena ku soo dhawaada gacmo furan waji furan niyad saafi ma la jiray hadalka badan oo business isku ma fiicnin sida kale dadka loogu qosliyo xoogaa garanayna ma fahamteen hadda laga bilaabo hawshu waa business tiiga qoslintana way socon doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo dukaankeenana waxa ka heli doontiin hadduu Ilaahay yiraahdo wax walba oo gabadhi isku qurxiso haddii ay tahay waxyaabihii mataqaana weligood ay gabdhuhu isku qurxin jireen wax cusub maxaa waxa waaye kareenka aan soo saarnay qosol wanaag kareenkeedii ayaa yaalo waxaan kaloo yaalo halkan cabaayadihii dharkii dumarka wax walba oo mataqaana dad gabar ku labisato ragana kama marna ayaguna waxaan rajaynaynaa inaan inta ka sii ballaari doono businesska ma sha Allah dhamaan ka soo qaybgalayaasha xalfadan waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku waqtigiina quruxda badan aad idinkaga mahad celinayaa suuqan cusub iyo businesskan cusub shaqadiisu ma dhow laakiin insha Allah Ilaahay mahadiiso hadalka badan isku fiicli cabdifataax hore uu yiri asagoo yoomayo leeyahay hadalka badan isku fiiclin anaaba ka sii daranba ma sha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin dhamaantiina intii daawatay intii maxaan ku raahdaa ka soo qayb gashay xalfada quruxda badan aadkii aad u mahadsantihiin suuq wuxuu ku yaalaa soo hore inta ku sheegay Jam Street ka soo horjeedka alhaaq walaasa in yara soo dhaafaysa maxaa la dhahaa suuqa Koonasanta shop number F14A Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ku faraxsanahay maanta labadeeda walaalood inay horumar gaareen ma sha Allah qosol wanaag cabdifataax waxaan leeyahay horumar wanaagsan ma sha Allah ما شاء الله أهلي قرابو أصحاب iyo family inta ka soo qayb gashay furitaanka dukaanka cusub aad ma santiin waxaan dhaho ma aqaano waa mahad celin adinkana waxaan idin leenahay ku dadaal Allah idinka dhigo ananka ununka ku dadaal Allah naga dhigo waxa waa hadii Ilaahay ku idmaayo ma sanidin wax kale aan dhaho ma aqaan faxdiga ku wareejiha فادي شادي شرف ولا شيء هذا
bismillaah alxamdulilaah waa ku faraxsanahay adeerkay macaan dukaankiisa iyo walaashay qaaliya Firdaws Qosol Wanaag waxaa leeyahay kuwii oo businesskooda fiicnaada Allah idinka dhigo. Assalaamu calaykum waa nii mahad celinaa dhammaan inta ka soo qayb gashay xalfadan quruxda badan adeerkay habaryartay waxaan leeyahay hambalyo hore u socda dukaanka iyo ganacsigiina kii baraaro insha Allah hambalyo ayaa naftu saaqay